Dadka hal-abuurka leh waxay u badan tahay inay noqdaan kuwo aan daacad ahayn. Furfurnaantooda awgeed, maskaxda hal-abuurku waxay u janjeertaa inay sii noolaato waqti dheer, oo xitaa laga yaabo inay helaan hal-abuur dheeraad ah. Hurdadu waxay faa'iido u leedahay fikirka hal-abuurka leh. Hal-abuurnimadu waxay aad ugu dhowdahay inay sare u kacdo inta lagu jiro saacadahaaga. Guulaystayaasha hal-abuurka leh waxay u badan tahay inay yeeshaan fiiro gaar ah oo aan diiradda la saarin. Dadka hal-abuurka leh ayaa laga yaabaa inay aad ugu dhow yihiin inay ku dhacaan xanuunada dhimirka. Dadka hal-abuurka leh waxay aad ugu dhow yihiin inay ku dhacaan xanuunka laba-cirfoodka. Dadka hal-abuurka leh ayaa laga yaabaa inay aad ugu dhow yihiin inay isdilaan. Shakhsiyaadka hal-abuurka leh waxay u muuqdaan kuwo madax bannaan oo hami leh. Cadaadisku waxay u xun yihiin hal-abuurka. Shabakado bulsheed oo kala duwan ayaa kor u qaada hal-abuurka. Hal-abuurku waxa uu ka kooban yahay sifooyin badan. Sifaadkan waxaa ka mid ah faseexnimada, dabacsanaanta iyo asalka fikirka, dareenka dhibaatooyinka, iyo kartida ay ku beddeli karaan kuwa la yaqaan. Lahaanshaha xusuus qoto dheer oo xoog leh ayaa markaa caawin karta fikirka hal-abuurka. Daraasadu waxay muujinaysaa in xiriirka bulsho ee liita uu faa'iido badan u leeyahay hal-abuurka, halka xiriirka bulsho ee xoogani uu leeyahay saameyn dhexdhexaad ah. Iyadoo shaqooyinka hal-abuurka ahi ay buuxinayaan oo ay kobciyaan siyaabo badan, waxay inta badan abuuraan walaac iyagoo dalbanaya ballanqaad ka baxsan saacadaha shaqada ee caadiga ah. Mawduuceena maanta intaas ayuu ku eg yahay.